اقرأ باسم ربك الذي خلق. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I read a lot. If you want to change where you are, then you need to change who you are. I consider reading to be like part of my job. wax aqri meel walba joogtid. Asalaamu calaykum asxaabta qiimaha badan ku soo dhawaada daawashada fiidiyoga. Maanta waxaan rabaa inaan idin wadaado mowduuc aad u qiimo badan. Mowduucaas wuxuu noqon doonaa waa mowduuc nolosheena ku dhisan. waa mowduuc nolosheena ku dhisan. Aana qiyaasi karin hadduusan jir yahayn waxaas sida adduunyada oo noolaan lahaa. Mowduucaas ayaa wuxuu noqon doonaa muhiimadda ay leedahay wax akhrista. muhiimadda wax akhrista waxaa ka daran kartaa rasuulkeena suubanaha sallallahu calayhi wasallam markii uu horeyso umar jibriil u maaday wixii uu horeyso u weydiiyey waxay ahayd iqra oo ah aqri. waxaa meeshaas ku jirta muhiimadda ay leedahay wax akhrista. muhiimadda wax akhrista ay leedahay ma ahan midii soo toobi karo, laakiin waxaan rabaa inaan mowduucaas wax yarta ka taabto insha allah. dadka wax akhriya waxay noqdaan qorayaal wanaagsan. qorayaal wanaagsan waxay noqdaan gudbiyayaal wanaagsan. gudbiyayaalta wanaagsanna waxa ay noqdaan qanciyayaal wanaagsan. waa ognahay waxay sameyn karaan dadka qancinta wanaagsan. dadka qancinta wanaagsan waxay sameyn karaan bulsho wanaagsan oo waxtar leh. taasi waa waxa ay Soomaali iyo adduunyada dhan ay u baahan yihiin. waxaan u maleynayaa inay doqonnimo tahay waxay maanta dadka Soomaaliyeed ay badankooda ay waqtigooda ku dhumiyaan sida qabyaalad iyo social media, Facebook iyo WhatsApp iyo waxyaabahaas oo dhan. warbixinada caalamka waxay qorayaan in maalintii inta badan 6 saac lagu bixiyo shaashadaha sida mobilada iyo telefishinada anigoo isticmaalin cilmi daroos. waxaan rajeynaa inaad fiiradaada u leedataan dhibaatadaas. si kastaba ahaatee wax akhris la'aanta waxay sababi kartaa firfircooni yaraan iyo hooy yaraan. ayaasaan inuu qofta bini'aadan tahay oo ummadii tasoo dhex muuqdo oo waxyaabo faa'iido leh usoo gudbiyo ayay sababi kartaa wax akhris la'aanta. doontan dambe waxaan aqrinaya buwaagtaasoo qaartood iilahayeen xiiso, qaartood aan u qabay aan iilahayeen xiiso dooniya halka kuwo kale aanan si saayida u xuseynayn. laakiin waxay ii ahayd waay aragnimo aynama caadi ahayn. iyadoo jirto in weli aanan aqrin wax badan. u sheeg naftaada inaad dareemayso farxad la'aan haddii aadan wax aqrin. waxaa wax u aqrisaa inaad soo aragto noloshii daa horeysay ee qarniyadeeday. inaad soo aragto dad sida u noolaayeen, sida u wataayeen, waxay isticmaalayeen iyo in badan. waxaad kaloo wax u akhrisaa inaad wax badan ka ogaato nolosha maanta noosha. waxaad kaloo kasoo muhiimsan aad wax u akhrisaa si aad u noolaatid qarniyada dhiman. taasi macnaheedu ma dhimanaysid, laakiin waxaad daraasaynaysaa. markii aad akhriso nololihii hore nolosha hadda jirto waxaad kuu soo bixi karo in yar oo nolosha mustaqbalka iyo caalamka sida u ekaan kara. wax aqri meel walba joogtid. markaad sariirtaada jiiftid, markaad safraysid, markaad soconaysid iyo meel walba aad joogto wax aqri. laakiin meesha ugu wanaagsan aad wax ku aqrinaysid waa gurigaada. markii aad aqriso buug wanaagsan waxay kuu tuurinayaan aad u tuuraysaa meelo aadan weligaada gaari karin. sidoo kale waxay kula dulminayaan dad aadan weligaada aadan dulmi karin. quruxda dunidu waa wax aqris. ma qiyaasi karo siday dunida noqon lahayd wax akhris la'aan. bal isku day inaad qiyaastid adduunyadan oo waxay akhrinaynin aan wax qoraynin sidee bay noqon lahayd adduunyadu. ma qiyaasi karo haba yaraatee. qof qiyaasi kartan inay jirto uma maleynaa.
laakiin waxaa ognahay inaysan wax horumar ah aysan sameyn lahayn. hadda u dar wax akhris